ayaynu rajaynaynaa maxay tahay annaguna wixii marba gobolka loo heli karo waxay nagu kalifaysaa inaanu xitaa soo wadno oo soo raacno ilaa nalaga guddoomo aanu halkan keenno waana lagu wadayaa hawsha insha allahu tacaala annagoo kaga wakiila gobolka waxaa ka jira guddiga gobolka ee abaaraha loogu talagalay oo maxay ka kooban 9 xubnood uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka 3 duqmagaalo la yiraahdo maayarada oo ah Buuhoodle Horfadhi iyo Widwid waxaa ku jira isuduwayaasha caafimaadka iyo xoolaha iyo dadka iyo isuduwaha haweenka oo gabadha iyo nin culimaadiina iyo nin ganacsadaha 9 qof ayaanu rabnaa inay gaarsiiyaan mujtamaca oo iyagu u qaybiyaan oo kiileeyaan laakiin annagu kiileeymayno iyadoo sidaas aan wareejinaynaa odayaashana mas'uuliyadda sare iyaga leh guddi odayaala oo khusuusiya halkan fadhiya oo dhowr iyo 30 oo jeerman u yahay Xaaji Maxamuud Xaaji Cumar Camay mas'uuliyaddii dadkaas aan ku wareejinay saasaan ahaanaysa insha Allah waxaan jecelahay oo ku duceynaynaa inay gaadho dadkii u baahnaa هذه اللي هذا يجي واحد يقول لي لما نبغى بنص واحد من الوردان ما هذه كلام بقرا والسلامة يا السمدة odayaasha iyo wasiirada iyo xildhibaanada dhammaan halkan jooga gobolka Cayn degmada Buuhoodle iyo dadweynaha waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alaykum asalaam anagu waxaanu nahay rag waftiga oo ka yimid dawladda Puntland waxaanu sidnay oo aanu wadnay raashin macaawina oo dawladda Puntland bixisay oo abaaraha ku saabsan inaanu idin soo gaarsiino oo aanu idinku wareejino si aad dadka dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen ee baahan aad u siisaan raashinkan waxaa loogu talagalay dadka jilicsan ee abaartu waxyeeleysay ee xoolihii waxna ay ka gureen waxna ay ka sii dhamaadeen iyo dadka magaalada ee aan iyagana sii jilicsan iyo magaalada waxay waa raashinkan wuxuu dhan yahay waa 70 tan oo u dhiganta 100 iyo 140 kiish 400 oo kiish 1400 oo kiish waxaanu doonaynaa haddaanu nahay dawladda Puntland oo isku dhammaanteed ay ku midaysan tahay milaa madaxweyne ilaa iyo cid kasta raashinkaas waa ayaanu soo gaarsiinay naga guddooma halkan waxaa ila socday wasiirka waxaanu gaarsiinaynaa ismada odayaasha wasiirka joogay meesha Maxamed Faarax wasiirka kalluunka waxaa ila socday aniga wasiirka xogeenka caafimaadka Maxamed Xirsi wasiirka xogeenka waxbarashada Cabdiraxmaan Diriye Arab iyo xildhibaano kale xildhibaan Faarax iyo wasiir joogay meesha marka waxaan iyo Fanax xildhibaan Fanax yaa ku deeqay maamulka Puntland yaa ku deeqay mas'uuliyad kala aan soo gaarsiin gobolka dawladda Imaaraadka ayaa siisay gobolada Puntland dabadna waxay ku deeqday dadka Puntland iyo dawladda Puntland ayay ugu deeqday laakiin xildhibaan deeqdan oo sheegtay inay 1400 oo kiish dhantahay marka loo eego baahida gobolka taala ee waxba kama dabooli karto saadaradeed maxaa kale oo qorshe ah oo dawladda Puntland ugu talagashay gobolka waxweyn hawlgal lagu jiro way hawlgal intii horeysay timi weeye